السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan meel kasto aad joogtaan asxaabay ku soo dhawaada qisooyinkan oo kugu talagalnay toddobaadkan. Haddaba toddobaadkan waxaan idin soo gudbin doonaa qiso cajiib ah oo aad u yaab badan. Inta aad dunida ku nooshahay waxbaad arki wax cusubna waad maqlaysaa. qisadan waxaa lagu tilmaamay mid aad runtii u xanuun badan oo ka dhacday waddanka Algeria sanadku markuu ahaa 2021. haddaba qisooyinkeena sida caadada waxaanu ka soo qaadanaa qisooyinka uu qoray qoraaga suxufiga reer Kuwait ee la yiraahdo Abu Dalal al-Hamrani. haddaba qisadan waa qiso runtii markii si loo eego cajaa'ib leh, markii si loo eego doqonnimo fara badan ay ku jirto, marka si loo eegana wax naxdina aanay ku jirin. haddaba qisadan waxaa la sheegay inay ka dhacday waddanka Algeria. qoys ayaa wuxuu ka koobnaa aabe iyo hooyo iyo wiil ay dhaleen iyo 2 gabdhood. waxay deganaayeen meel gobol ah. gabadha weyn waxaa la yidhahdaa Raxiima waa la guursaday. reerkii waxaa ku soo haray odagii iyo hooyadii iyo wiilkii iyo gabadhii. Raxiima waxay soo degtay magaalada meeshii gobolka ayd way ka soo guurtay meel magaalo oo gobolka ka weynay timid. nin baa guursaday 5 caruur ay dhashay, 3 gabdhood iyo 2 wiil. reerkeedii ama reerkii ay ka dhalatayna wiilkiina uu guursaday, gabadhii laakiin lama guursan. hawshu saasay ahayd. intii ay la nooleed Raxiima reerkii aabaheed iyo hooyadeed waxay iska ahayn reer danyaro iska wax problem oo kale laakiin iyadu ay ogeyd ma jirin. laakiin markii ay soo guurtay oo ay ninka guursatay ayaa wax walba reerkii isbedeleen. wiilkii iyada la dhashay ayaa wuxuu la saaxiibay jin ayuu la saaxiibay. waxyaabaha la yaab kale ka mid tahay jin ayuu wuxuu la noqday saaxiib. jinkaas ayaa marba wiilka meel u dirsada. reerkii guriga aabihii iyo hooyadii iyo gabadhiina lafahoodii uga baqeen maadaama sheekadu jin iyo alaab kale ay soo gashay. way si isu yara hakiyeen. wiilkii jinkaasoo la macaamilaa. gabadha weyn ee laga soo guursaday reerka ee sheekadu ku socoto Raxiima la yiraahdo ee meel kala degan, iyadu waxa dhacaya kama warhayso. waa markii ay reerku ka soo guurtay kadib. iyaduna marka reerkeedu waa iska wixii nolol maalmeedkooda helaan. ninkeeda iyo iyada way wada shaqeeyaan. ninkana shaqo aadaa, iyaduna waxay ku caawisaa aalada la yiraahdo khayaadka ama dawaarka ama harqaanka. qof walba soo u yaqaano ayay toshaa. dharka dadka xaafadaha iyo waxaasay toshaa. waxay ku kabtaa nolosha qoyskooda maadaama caruur fara badan ay leeyihiin oo 5 ay tahay caruurta, 3 gabdhood iyo 2 wiil. wuxuu waqtigu isku raba qolo walba meesheeda la iskaga bariidiyo. aabba seetiin, hooyo seetiin, ma fiicantiin meesha. hadda marka waa waqti dhow waay 2021 telefoonaa jira, wax walbaa jira, adeeg fara badan jira, waa la iska warhayaa. macluumaadka marka reerka waa laga wada hayaa. laakiin reerkan waxa ku soo ziyaaday jinkan reerka saaxiibka la noqday iyo waxa kan iyo gabadha looma sheego. maalin maalmaha ka mid ah marka wiilkii iyada la dhashay ee jinka saaxiibka la ahaa ayaa wuxuu telefoon u soo diray Raxiima. wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ku soo ziyaarto oon ku imaado oo dana gaaran ka leeyahay walaashay. hada walaalkeed waaye waxay tiri okay una xogaa walaalkeed ka yar waaye.
haye waa ii iman kartaa jiro maadaama walaalkay ataa waqtigaa rabto ii imo ninkaaga dee shaqo iyo waxaas iyo soo ma laha ninkayga dee wuu iska shaqeeyaa tiri aniguna gurigan ku shaqeeyaa marka xilli kasta guriga waa joogaa ii imo ninkan wuxuu fiirsanayay ninkeeda waqtiga uu maqanya walaasha marna kama shakin walaalkeed Raxiima marna walaalkeed iyadu kama shakinayso de walaalka ma yaa ka shakinaysaa danankaa leeyahay kuwa ku imaanaa ku yiin gurigiiu yimi waa la isbareyniyey hayo walaasha see tahay ma fiicantaa khayr alxamdulilah caruurtii way ku fiican yihiin haa waa kaas waa la sheekaystay maaragtay shaaha loo shubay xoogaa yar macmacaan carabta markaa timaado maaragtay cunto hore lagaama siinayo meelaha xoogaa Algeria iyo Morocco iyo way ka duwan yihiin oo xoogaa macmacaan yar lagu soo dhigayo maaragtay timir yar iyo xoogaa xalawiyaad iyo shaah yar iyo alaabtii loo keenay ninkaan alaabtaas kuma socdo wixiise markuu cabay wuxuu walaalay soo dhawo xaaladii aan looga soo tagtay soo mooy markaasay tir haa xaalkeenu hadda waa kasii liitaawi dan yaraa annagoo dan yaraa naga soo tagtay waa lagu soo guursaday dhowr sanaa naga maqnay xaalkii waa sii xumaaduu yir hadda haye aniga naagan guursaday haddee noloshii way sii adkaatay fuqaro aan noqono dhulkaa galnay hadeer aabbay hooyo wax badan kuuma sheegaa laakiin anaan waxba kaa qarinayno xaalkeenu halkaasu maraa marka adiguna yaan la dhibinaa lisla iyadaa teeda haysataa oo ilma korsanayso ninkeeduna nin iska maskiina yahay iyagaaba lo qutal maalmeedka la darirayee marka qorshaa noo hayo muxuu yahay tiri qorshaha waxaa waayo yani kanzigu marka waxaa leedaa wax sanduuqa oo alaab mujawharaada lagu kaydiyey aan ogoo yiri meelu ku jiro oo yaa iskale tiri kanziga muxuu yahay sanduuqa dahabka iyo loolka iyo waxa dhan ka buuxaano marka aan gacanta ku dhigno aan wada taajirayno adinka iyo annaga iyo cid kasta ay taajirayso muxuu yahay yaa iskale markaasuu wuxuu yidhi jinaa ii sheegay laa xawla walaa quwata jin ahaa haye muxuu ku yidhi meesha uu ku duugan yahay kanziga iyo waxa dhan uu ii sheegay meeshaas marka la tago alaabtaas la soo fogo waxay tiri walaal adiga dhegeyso sanadka la joogo waa 2021 tiri 21 alla maraa waxa igala hadle wixii ay ayeeye iyo awoowo iyo nooga sheekayn jireen waa hore waxaa jiri jiray nin maaragtay meesha alaab gashaday sheekadii ay la timid nin weyna tahay tiri see wax kaa yinaade maxaa kaa qaldan jinaa meel wax gashaday ii sheegay faqiirnimadaan ka baxaynaa maxay adiga wuxuu yidhi sheekada maba dhammayne horta iga dhagaysu ha degdegin haye waday tiri marka noowad sheekada quraafaad waay tiri waxaan wax sheeka la dhagaysan kara maahan gabadhu marka Raxiimada waa gabar caqli badan wuxuu yidhi dhagayso marka adiga naga soo tagtay haa aniga jinaa la saaxiibo yidhi haye jinka waa saaxiibkay lilaahi yidhi haye marka aniga iyo jinka iyo waxa dhan iyo kulli baalkaas inaan soo qaadanaa laakiin baalka meesha ku jira waxaa waardiyeeyaa jinka midka weyn oo cirfiidka la yidhahdaa waardiyey haye hal midaana kusoo heli karnaa suu jinka ii sheegay haye wuxuu yidhi in qurbaan la sameeyo qurbaanku waa taqaanaan marka oo carafada marka la gaaro soo wax lama qalo xoolo soo lama qalo qurbaan marka qurbaan u baahan qurbaankiisuna waa gabar yar haye daadeeduna 6 sano aysan gaarsiisnayn marka Raxiimada waxay haysataa gabar yar
oo da'deedu jirto 5 sano oo la yiraahdo manaal haye gabadhaasaa marka wuxuu yidhi ninka jinka marka meesha la geeyo oo la siinayaa jinka iyo wixii oo dhan ee markii gabadha la qalalo waa kala caranayaan alaabtaan la baxaynaa qurbaankooda waa haystaa khalaas adigana waa taajiraysaa annaguna waa taajiraynaa oo marka ani maxaa iigu sheegaysaa ay tiri marka sheekadan wuxuu yidhi tilmaamaha uu jinka saaxiibka isiiyey gabadhaada manaalaale war waa adigaaba war haya oo saa u soo socotay sheekada bilowgeeda ilaa qarracdeeda ma waxaa ii keentay gabadhaada yartaa ee manaal ee carruurta ugu yar ee 5 jirka ayaa qurbaan laga dhigayaa oo jinka la siinayaa si aan u taajirino wariyaa waxay tiri ma fiyowda xamis waa waalata adig waxmaa kaa qaldan tiri maba ku fiyowday tirsaan wariyaa dhageysay tiri haddaadan gurigayga hadda ka bixin boliiska ku dalbayd ciyaal suuq yahow haddaa ii keentay sheekadaas gabadhaadii aan qaadaa waa dilayaa jinaan siinayaa jaar wariyaa adiga maa kuwaaga geysid ma aniga 2 wiil le qabaa gabaraa layska rabo wariyaa dhageysay tiri mar dambe haddaan gurigayga kugu arko iska ilaali tiri gabadhii waaba naxday ninkii waa iska raacdays way yaabtay way fakartay ninkeedii dee uma sheegi karto walaalkayga ila dhashay isku hooyo isku aabbana inta ii yimid ayuu sheekada iila yimid ma ninkeeda ku dhihi kartaa way yaabtay war ninka muxuu ahaa haddana jinaan saaxiib la ahay iyo way yaabtay markay keligeed muddo la aamusneed sheekadii aabba iyo hooyana umaysa sheegin weli ogow wixii ay ka samayn lahayd sheekadan ayay ka fakaraysay markii dambe hooyadeedii aabbaheed ayay telefoon u dirtay wixii dhex maray iyada iyo walaalkeeda u sheegtay wuu qaldan yahay marka annagaa kula soo hadlayna bal waraysanayna isagana waayay tiri odayga iyo maamada iyo gabadha guriga joogtaba ninku way ka baqaan jinkan iyo waxan iyo markuu la saaxiibay arkeen nin walba lafiis uga baqaa wax dhihi kara male inta odayga habartii tasoo wacay waxay yiraahdeen wiilka ku soo wadeena annaga dhan reerkii oo dhan soo baxay yiraahdeen aniga iyo gabadha yar iyo xaaskayga odaga dhahaya iyo wiilka waa soo wada baxaynaa si wiilka uu maartay uu ka cudur daarto wixii uu kugu sameeyay ku raali gariyo kadibna waa ka soo noqonaynaa walaalay marka ee gabadhaydii aqbalo okay tiraab iska caadi marka moogtahay odagii waa xaraaqay istiri reerkii dhana soo socda wixii lagu geystay waa laga xal marinayaa sheekadu meesha ku dhamaanaysa ninkii iyada qabay wali waxba arika uga maashiin waa la soo socday gurigeedii ayaa la yimid gabadh raxiima gurigeeda ayaa la yimid raxiima marka meesha lagu sheekaystay raxiima marka waxay tiri aabow wiilkaagu sidaasu igu sameeyey ma wax qof weyn oo walaal ah loola tago miyaa waxaas gabadhaadan inaan dila rabaa ma waraa hadda booliiska haddaan u sheegay tiri ninkan waa la xirayaa 20 sano 30 sano la xirayaa marka aniga wiil kaloo ila dhashay ma qabay tiri malihi wiil kale anigii gabadhaan iyo isaga kaliya na dhasheen labadiin ninkan sidee wax ka yihiin ma waashin ninkan odaygii iyo maamadii intii wadada lagu soo socday ayuu ninkan handaday dhoola tusiyana waa tusayoo jinkii iyo wixii iyo waxbaa la soo tusay iyagoo dhan sidii waa wareersan yihiin laftirkooda waa jinkaa soo galay odaygii marka wuxuu yidhi dhagayso baan dhahay wiilkan waxa uu kaliya rabo inuu ku taajiro annaga dhanna aan ku taajirno gabadhaada yartaa manaal soo maa haa hadda si qurbaan ha ka dhigta laa xawla walaa quwata ilaa
oo aabba ma adigaa waxaas igula hadlaya war adiku sidee waxay idinka yihiin oo reerkii aniga aan ka dhashay oo aabbahay iyo hooyaday iyo walaashay iyo walaalkay dad ii xigay miyaa sheekadan iila imaanaya maamadiyaa soo bood waxay tiri maandhaay lafaheennaan u baqaydhaay adigana yaasan dhibaato kale kuu imaane waxaa yaa lagu leeyahay yaa oo adigana masaasaa hooy wiilkii waxba ma hadlayo meeshaasu fadhiyaa gabadhii kale ma hadlayso hooyadii iyo gabadhii markay meeshaas sheekadu marayso wiilkii inta istaagay ayuu Raxiima ku booday iyagoo arkaya oo indhahooda shanta yihiin oo ciiji qabtay war hooyo war aabbo iga fujiya gabadha waska gabadh miskiin ninkana waa nin xoog badan ciijiyo nabdha ilaa nafta ay dayso weesha fadhiyaan sidii masawir camal u fiirsanaan uu leeyahay aabbaha hooyada iyo gabadha nafta markay ka qaadeen gabadha ninkeedu waa maqan gurigii inta galeen gabadha yareedo jiiftay soo qaateen waa la tageen gabadha waa dileen qurbaankii la sheegayay wixii laga dhigay maxaa dhacay marka waa la waayay kanzigii meeshii jinka hal qodo uu yiri inta la qodaa wixii oo dhan laga waayay meeqa qasaara dhacday walaashiis wuu dilay gabadheediina wuu dilay wax hantiya uu helayna ma jiraan meeshii wax cidlaa ugu tagay god maran ibra jinkii iyo asagu marka meeshaas ay wax ku qasaareen qasaaradanna way dhacday ninkii naagta qabaa yimid gabadhii oo maqan islaantii oo dhimatay gurigii oo dhan isku dhex yaacsan booliiskii oo wacay baaritaana la sameeyey wixii oo dhan la ogaaday kaamirooyina ku rakiban hadda meel kasta kaamirada markii la raacay familkii kaliya meesha galay guriga waxba ma isqarin kartaan leer kaamirada ay haysa gabadha adika dilay miya booliiskii reerkii soo qabteen way soo xireen xabsi lagu tuuray odaygi waxba ma qarin wuxuu dhageyst saasa wax u dhacay guriga annaga tagnay wiilkaasa gabadha dilay annaga waa u jeednay dhibaataduna waxay ka bilaabatay halkaas jinkaas waxaasar waa la taajirayaa kana la noqonayaa gabadhaas masaakiinta ee aan dhalay waxaa dilay wiilkaas aan dhalay gabadheeda miskiinta ahna isagaa dilay oo qurbaana ka dhiganayo yiri macnaa waxaa hadiyad loo siinayaa gabadhaas jinka weyn arfiidka la siinay booliisku waa yaabeen waa la soo yimid jaraa'idkii Algeria wixii oo dhan sida wax u dhaceen waxay noqotay wax ama kaaga noqotay famil isla dhashay oo sidaa isu galaya oo jin amarkiisa qaadanaya qisada magaceeda waxaa la yiraahdaa awaamirul jinn la yiraahdaa jinkaas oo amray waxaan saas wixii sameey waa la qabtay xabsigii markii la geliyay kulligood maxkamadii la keenay maxkamadii xukunka koobaad wuxuu noqday xukun daciif odagii iyo habartii iyo gabadhii yareed waaba la sii daayay ninkanna waxaa lagu xukumay 10 sano xabsi siday wax u dhaceen lama yaqaano qaabka xukunka u dhacay lama yaqaano ninkii marka gabadha dhalinyarta ah naagta la dilayna qabay abiilu ka qaatay dacwadii wuxuu yiri xukunkan qalad waay dadkan kulligood lugay ku leeyihiin dilka xaaskayga iyo gabadheeduna seennikan 10 sano xataa loogu xukumaya heshaan wuxuu yiri qalada ka jira garsoorka maxkamadii kale la isla tigi maxkamadii kale ayaa xukunkii bedeshay xabsi daa'in ayaa lagu xukumay ninkii walaashiis dilay gabadheediina dilay kaas horta ilaa fiina wiit halkaas lagu xukumay
xabsigiisa noloshiisa inta ka dhiman u qaadana. aljeeriyada dil iyo waxaan meelaha qaar lagama yaqaano. ninkii nin dila xabsi daa'inaa la geeyey. odaygii iyo habartii iyo gabadhiina min 20 sano ku dhowaad ayaa iyaguna garka loo geliyay. aljeeriya marka 2021 ilaa hadda waxyaabaha dadku ay ka sheekaystaan waxaa ka mid ah awaamirul jin. sheekadii qisadii awaamirul jin, awaamirtii jinka ee reerkan dhibaatada u geysatay ayaa marka laga sheekaynaya. marka waa runtii waxay ahayd sheeko aad iyo aad u xanuun badan yahay. bal fiiri, walaalkaa kula dhashay, kugu hooyo, ku aabba ah ayaa wuxuu kuula imaanaa waxaasoo kale. u fiirsada, hunguriga suu kuu wado marka dambe meel khatar ku geynaa. waan wada taajiraynaa ee gabadhaadaa loo baahan yahay keen aan dile. dadka qaar waxay aaminsan yihiin xataa isagu gabar hadduu dhali lahaa keen la dhihi lahaa waa samayn lahaa. iska dhaaf walaashiis middaa dhash, maadaama isaguusan gabar lahaynoo 2 wiil leeyahay. jinka hadduu dhihi lahaa wiilashaada mid ka mida keen qurbaana wuu ka dhigi lahaa. noloshaasaa dadka qaar adduunka ku noolyihin. marka la leeyahay qofka mar walba adkaartiisa iyo maaragtay iyo qur-aan akhriskiisa ha joogteeyo si shayaadiinta iyo jinka iyo waxa kanaysa u soo dhowaan. saaxiibtinimada jinka iyo dhibka ay leedahayna waa kaas. marka dhibaatadaasu marka waxay dhacdaa leeyahay sanadkii 2021 aljeeriya ayay ka dhacday. qisadeena toddobaadkan marka waxaynu ku soo qaadanay qisada cajiibka ahayd ee uu qoray Abu Talaal al-Hamrani. haddaba adikuna fakar iyo aragti wixii idinkaga kordhay qisooyinka mar walba waa soo qortaan oo ku mahadsantihiin. talna soo qora, like gareeya oo share gareeya meel kastoo aad joogtaan. sidoo kalena haddaad ku cusub tahay qisooyinka nadaara raba janalkeena fadlan subscribe ka samayso, facebookana follow gareeya. inta aan mar kale kulmayno asxaabay iyo qiso kale oo cajiiba oo aan idiin soo turjumi doono. sidaas iyo nabadgelyo.